wadamada Norway iyo Ukraine ayaa kala saxiixday heshiis dhanka difaaca iyo gaashaandhigga ah oo ay labada wadanba ku heshiiyeen, waxaana lagu soo waramayaa in ay Norway danaynayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska oo ay caan ku noqotay wadanka Ukraine, kuwa oo ka hortaga diyaaradaha isqarxiya ee aadka loogu adeegsanayo dagaaladii ka dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka. Norway ayaa heshiiskan cusub ay la saxiixatay wadanka Ukraine waxa ay ku heli doontaa warshad soo saarta diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee ka hortaga diyaaradaha kale ee aan duuliyaha lahayn ee isqarxiya lagu sameeyo gudaha wadanka Norway. Heshiiskan ayaa waxaa si wadajir ah u saxiixay wasiirada gaashaandhigga labada wadan ee Ukraine iyo Norway, iyadoo uu ku dhawaaqay heshiiskan qalinka lagu duugay ee dhexmaray Norway iyo Ukraine ra'iisul wasaaraha wadanka Norway Jonas Gahr Støre kadib markii uu booqasho rasmi ah wadanka Norway ku yimid madaxweynaha wadankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky. Booqashadii Zelensky ee uu ku yimid Oslo ayuu ka dhashay heshiiskan is-afgaradka ah ee ay gaareen labada wadan ee Norway iyo Ukraine, taa oo dhigaysa in Norway gudaheeda laga soo saaro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee difaaca ku wanaagsan iyo ka hortagga duqeymaha xooggan. Waxaana lagu soo waramayaa in Ukraine oo caan ku noqotay diyaaradahan difaaca adag in lagu sameeyo wadankeeda ay hadda u soo gudbin doonto Norway, wuxuuna noqon doonaa heshiiskan ay kala saxiixdeen Norway iyo Ukraine kii ugu horeeyay ee si rasmi ah u dhexmara labada wadan oo dhanka sameynta diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ah. Warshadan soo saari doonta diyaaradahan difaaca adag ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa laga hirgelin doonaa gudaha wadanka Norway, waxayna bilaabi doontaa soo saarista diyaaradahan aadka u qiimaha badan ee dhanka difaaca ka qayb qaata. Wasiirka gaashaandhigga wadanka Norway Tore Scientific ayaa ku waramayo heshiiskan cusub ee dhexmaray labada wasaaradood ee difaaca ee Ukraine iyo Norway ee lagu dhisayo warshadan soo saari doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in uu yahay heshiis anfac iyo faa'iidaba u leh labada wadan waa Norway iyo Ukraine. Halka warka kiisa ugu door karan uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.